Professor Ahmed Ismail Samatar oo kamid ah doorka aqoon-yahanada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay inuu xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ku taageeray qodobo dhowr oo lagu soo bandhigay buugga xisbigaasi waxaana hadaladiisii kamid ahaa If kulmiye is this xisbiga kulmiye haduu ka yahay anigu taas ay deeqday barnaamijkaas ay deeq Muuse Biixi Cabdi why anigu shan this is ana imika iska hadlayay barnaamijka kuma qorna ana tan iska hadlay anigu shan amurood baan Muuse ku raacay inaan taageero oo xisbigii maxaan ku rahay u noqdo musharax aniguna aan ku soo biiroon marka intii taagtaydahay aan caawiyo safarka dheer maxay tahay kow Muuse Biixi wuxuu yahay qof qayb weyn oo maxaan ku rahay hoggaan sare kaga jiray urur dadka reer Soomaaliland ay sameysteen oo lagaga hortagayay dictatorship folxun oo wadanka baabisay oo khaasatan Soomaaliland si xun maxaan ku rahay u gashay in laga hortago oo hortagidaas nafta lagu biimeeyo in la iska rido taas ayuu kamid ahaa dadkii isku dhiibay hawshaas ee noloshoodii iyo tacabkoodii iyo maskaxdoodii geliyay waa kow marka halka waxa ka muuqata qof leadership wax ka garanaya de ma maamuli kartid ma hor socon kartid urur caynkaas hadana leadership-koogii kamid tahay inaad hadana de lahayn capacity at leadership ad hoggaan ku wadi karto taasi waa kow dadku waxa yiraahdaan wadanku abaal buu Muuse ku leeyahay in loo abaal gudo no qof wadanku uu abaal gudaya ma jirto it doesn't matter what you do hada yeer wadanka kugu la inaad shaqo qabato adeegan kala baranaya wadanka kugu la shaqo qabato waa inaad ku dhimataa adigoo wadanka u shaqeynay wadanku kuma shaqeynay adigoo kuma ornay abaalkaagii baan ku siinay no wadanku ba hada yeer lagu investment ku waa wadanku goor waxa lagu kala mudan yahay marka qof walba de wixii wadanka oo galiyo labada anigu Muuse aan isku raacneen ku arkay waxa weeye de wuxuu soo qabtay mas'uuliyad buu soo qabtay anu maan joogin wadanka laakiin waan dirsay waxooga wasiir dakhliga noqdo wadanka Soomaa wadanka dakhliga minister of interior dadkii baan wareystay markuu wasiir dakhliga hawlihiisu sidoo wasaaradda u maamulay waa wasaaradda wadanka oo dhan gudihiisa maamulaysa waxyaabihii la iga sheegay inteeda badani very positive qof tala goyn kara meel walba afarta angelin dadka ka hooseeya la shaqeynaya hawsha u dhiiba laakiin experience de ula de inuu wasaarad maamulo and one of the largest ministries of Somaliland Muuse waxa kale oo ku arkay qof adkaysi badan resilient adkaysi kuna hadii dad madax noqonaysan adkaysigaas waa very important inaad yeelato Muuse waxa kale oo ku arkay oo afraad oo shanaad waxaan jeedaa afraad waxa weeye qof ku dhici kara qofka leaderkii haddaanu lahayn kalsooni أو isku qabo rag iyo dumar oo dabadeetana ku dhici kara wax dadka kale aanay ku dhici karin haddaanu qofku lahayn wax badan baa dhiman wuxuu kaloo Muuse leeyahay waa qof wax dhageysta aniga dad badan baa igu yiri Amuud baan daano iskuulkan ku jiri jirnay inkastoo aad isku aqoon waxa waa askari marka waxa ma dhageysto isaguna waa askari oo de askari adoo amar u bixiyo ma ogi wax kale ma jirto anu deyn badan baan sheekaysan ugu yaraan 30 saacadood waan sheekaysanay Muuse in the last year so 30 hours alone dad badan kale waan weydiiyay I have seen with my own eyes he listens Muuse intuu halka fadhiisto saacad ku dhageysan kolaas marka dambe professor goorma soo gabagabayn so but he's a good listener qofka madaxdiina inuu wax dhageysto becomes very very important tana wuu leeyahay waxa weeye anu waxaan iga dhaadhacsan hadallada badan ee yeelana aan ka arkay anigana ay qanacsan inuu wax wada qabsano meel wada marno waxaan arkay qof garanaya si dhaba u garanaya lagama tagaan inay tahay wadankan in kor loo soo qaado dawladnimadeeda kor loo soo qaado good governance kor loo soo qaado si dhaba loo soo ugu dambeyntiina munaasabadani waxa su'aalo kala duwan lagu weydiiyay Professor Ahmed Ismail Samatar wa Xariir Maxamed Koosar Star TV Hargeysa